marka ugu horeeyo xildhibaanada sharafta leh waxaad ogaahaysiin waxa noola keenay waa heshiisyada lala galo dawladaha aadnabiga ah sharciga wuxuu noo dhigaa ama sharciga adduunku ay dhigeen baarlamaanka in la geeyo dawladaasu ay leedahay baarlamaankaasu inuu ka doodo afka aadnabiga waxaa lagu yidhaha rectification iyo rectification waxaa waaye marka la diido rectifiedna marka la ogolaado waaye waxaa cad oo meesha yaalla oo qadiyadahoo cadoo loo codaynaa annaga heshiiskan baarlamaankii Soomaali haddaan nahay inaan ama yeelna ama diidnaana la ka rabaa qodob saddexaad ma jiro marka haddii aan yeelayno waa inuu sabab leeyahay dana uu jirto dalkeena iyo dadkeena haddaan diidaynana waa inaan maslaxad darro dalkeena iyo dadkeena ku wajahan aan ku aragno su'aasha meesha taal waxa waaye heshiiskan ma yeelaynaa mase waa diidaynaa wax hore loo dhigay wax gadaal loo dhiga male haddii aan diidayno baarlamaanku ra'yi iyo rabitaan iyo wanaag iyo saaxiibnimo wax kuma go'aamiyo wuxuu wax ku go'aamiyaa cod waxay naqanayaan markaas inaan yeelayno inaan diidayno inaan cod gelino waxa soo baxday heshiiskan inuu san anficin inuu belaysan yahay in shaki badan uu ka yimid aqoon-yahanada baduhu inay ka hadleen 38,000 oo square kilometer oo badda dhexdeeda in la qaatay qariirad annaga iyo Kenya noo saxneed ma jirin qariirada waxaa saxay isticmaalkii dalalka kale haysan jiro Ingiriiska iyo Talyaaniga kan waa la soo leexidaan diidaynaa waxaan idin ka codsanaa dalkiina ayniyo waa inaad diidaan ka xoreysiin waana ma tilkiin